hallow habboonay i dhegayso aroos heer sara hol sarreeya ku leenahayo kolley halkii aan ka helaayo dirac heer saraa habeenkaa layga horreen halkee baan ka helaa hagaag iigu tilmaam waa aniga yabaale heybadaad u jeediyo haneedkayga baxaya halkaad joogto dunidii hareertaada ka eg waa horyaalkii kambaniyada safa beauty company duruucdii ugu dambaysay sida duruucda xariirta dhalaalka faransaawiga maqmalka kaalayo ka dalbo safa beauty company horseedkii kambaniyada waxaan leeyahay ha moogaanina haddii muruqyadaadii iyo maqaarkii iyo jirkaadii iyo madax xanuun horeetiyo migraine ku daashaday daawadaan ha moogaan safa waa ma dhaafaan meel kastoo jirkaada aad ugu masaajee adigaa maqsuudiye hubanti weeye safo sidoo kale haddii aad la timaado naqshad adiga kuu gooni ah waa laguu samaynayaa diracyo iyo weliba cataro caraftooda la yaabana waa lagu hayaa dharkii raggana meesha kama marna asina iyo weliba daawooyinka laga sameeya dhirta ha moogaanin safa beauty company safa beauty company ha moogaanin ee hore u gaar haddaba kala xiriir horseedkii kambaniyada taadheero faahfaahina waxaad kala xiriirtaa taleefanada ku qoran shaashada safa beauty company safa وحقاق داود يا الملك سو الدنيا ذيك جوكتان صفا بيوتي كمباني كحرنادا داوين جرمك لوسو سمي او تيدا دوايا وسريستو يولي برقي داركي الرقا عيدينا واسولو ذا هاو دايما العنينا انت كدب داود يا وركي ودن بي دقالك الروشكي يوكرين يا نوردين كاهنا يوكرين يا واحد شيغانيسا قولوا وين وانينا بعادي هين او انو اسلانا هاي بلشده الصوماليين اوغايتو ايي مهم تاهي si ay ula socdaan xaaladda halkaa ka socota iyo guulaha la kala sheeganayo dhanka kale dowladda dalka Pakistan iyo ra'iisul wasaaraheeda Imran Khan shalayto waxaan idinkaga soo warranay in ay markaas mooshin lagu furay maanta ee loo balansanaa maxkamaddu inay go'aan qaadato maxaa ka soo baxay maxkamaddii go'aan la fili waayey goordhow baanu idinkaga dhacaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dalka Maraykanka xalay waxaa ka dhacay xasuuq in lagu dilay 6 qof 3 rag iyo 3 dumar lagu dilay halka ay 12 kalena dhaawac culus iyo mid fudud isugu jiraan wararkii ugu dambeeyay ayaanu qodobkaas idinkaga haynaa haddii la yiraahdo waa Maraykanka haddii aanu sii joogno madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay sheegay Putin in maxkamad la soo istaajiyo maadaama lagu eedeeyay in uu geystay faradambiyeed ka dhal xuquuqul insaanka dad fara badan oo masaakiin oo rayidana dalka Ukraine lagu dilay 5 wadan oo carab oo ku baraarugay dagaalka 40 maalmood jira ee umul baxay inuu dunida ka socdo oo iska hurday oo warhayn talowiya kamid ah safiirkii u fadhiyay dalka Lithuania Ruushka ayaa cawda loo jaray isbedel ayaa halkaa ka soo baxay siyaasadeed oo aan horey loo filaynin arrimahaas iyo kuwa kale ayaan idinkaga dhici doonaa marka hore aan idin soo dhaweeyay meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo goobta aad naga daawanaysaa nafadooda nala wadaaga waqtigiina waan kaga mahad celinaynaa injineerkana si diiran ila soo dhaweeyay injineer soo dhawow aad iyo aad uad mahadsantaha Cabdixaafid adiga iyo tiimkaaga Brit Somali TV iyo dadweynaha qaybaha yaqaaya halena daawada waan salaamayaa وهاجا إنجنير سودو وحن ربنا هدي له إلى هذا مركو ورسنا نود المرتين شرف كلامي نوتة مركب المرتين وقتها برنامجك تقال كا يوكرين وحي شيء يقولوا وين أو أن هري لوس هذا لنا فرينين قولها عن محاكم إذا محاسة كذا بسولو وسلام يا مرة عبد الحافظ وسط شيء قولوا بدن بيشيغانيان وحي شيغانين إن عسكر عيدا آد فر بدن كلايين ilaa iyo tirooyin waxa wareegaya meelaha ay soo dhigeen 18 kun ciidamo ka badan bay sheegayaan waxay sheegayaan in diyaaradaha ay ka soo rideen Ruushka ay gaarayaan waliba diyaaradaha dagaalka 147 diyaarad in dhulka soo dhigeen waxay sheegayaan inay helikobtarada 134 gaarayaan kun kor waxa u dhaafay taangiyada runtii haddii la rumaysto warka Ukraine ay soo saarayso taas macnaheedu waxa weeye jab iyo halaag ayaa ku dhacay ciidamadii Ruushka runtii horta dhaawac way u geysteen laakiin anigu waxaa tirada xoogaa waa laga badbadiyey ayaan isleeyahay waxay ku jirtaa heer mataqaanaa maadaama magaaladii caasimadda ahayd laga durkay oo hadda aysan rasaasooyinka duqaymuhu way socdaan laakiin aan mataqaanaa looga baqayn dhulka laga qabsado wadaniyad ayaa dhiig cusub baa soo galay dadka Ukrainiinta ah waxay leeyihin nimankii waan iska cayrinaynaa waan ka hortegaynaa dagaal baan uga saaraynaa wadanka qiiro noocaasa la abuuray balse waxaa cabdixaafidow aad iyo aad calool xumo iyo murug
ku taalo la reebay waxaa ka dhacay magaalada yar la yidhahda buqa u dhow duleedka ku taalla kiif oo loogu tagay sida la sheegayo xabaalo wadareed aan caadi ahayn 400 kor u dhaafaysa meeshaas waxaa laga soo sheegayaa aafooyin aad iyo aad halis u ah waxaa la ololeynayaa in maxkamad la abuuro sida maxkamaddii Nuremberg mataqaanaa naaziga marka laga adkaaday Nuremberg baa maxkamad laga furay halkaasaa qaarna lagu daldalay ilaa 11 saraakiishii sarsare mataqaanaa jarmalka lagu daldalay saraakiil fara badanna xabsi daa'im lagu xukumay waxaa la leeyahay stylekii Nuremberg oo kale in ay loo sameeyo ruushka ayay u baahan tahay in dabagal lagu sameeyo looga harin mataqaanaa waxa ay ka geysteen Mariupol iyo Bucha iyo meelo kale oo la isleeyahay gaboodfalyaan ka dhacay shacab baa inta lasoo qaabtay waxaa dhagaa faraxumo dumar baa la faraxumay la dilay waxaa intaas kaliya xataa loogama harin xataa meydkii baa mataqaanaa si saqajaannimo ah loola faraxumeeyo waxay kusoo waxbaa lagu sameeyey mataqaa calaamadii Hitler iyo calaamadaha mataqaa naaziga iyo waxaasay dusha kaga dhigeen oo mataqaanaa nabaradaasaa lagu arkaa laleeyahay arrimahaas arrimo aad iyo aad u foolxun caalamkana kiciya khaasatan reer Yurub marka hadda haddaad u fiirsato cabdixaafidow Yurub doodaha hadda ka socda maalmaha oo dhan waxaanu ka hadlaynaa ciidamada iyo siday u barbar taagan yihiin mataqaanaa Ukraine laakiin xuraan aan sameeyey shacabka dhexdiisa sida waxaa looga arko hadday tahay Faransiiska Talyaaniga Jarmalka Ingiriiska runtii xisadu waa kacsanta dowladdu iyo shacabku kuma kala harsana waana diyaar waxaa loo yahay in lagu bixiyo wax kasta oo suurtagala sidii ruushka la isaga qaban lahaa ruushka cabsi weyn baa laga qabaa haddaan wax yar u faahfaahiyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh waxaa leeyahay ruushku markii uu ku duulay Chechnya oo baabi'inayay adduunyadu waa fiirsatay looguma tegin waxaa la leeyahay dabeetana waa kii Chechnya markuu kasoo farxashay halkaas iyo Suuriya u aaday looguma tegin wuu soo burburiyo xalabje iyo wuxuu ka sameeyay waa la ogaa waxaa la leeyahay 2014 waa 2008 aan raahday wuxuu ku duulay Georgia oo Abkhazia oo labada gobol ka jaray Ossetia iyo Abkhazia dad fara badanna ku laayay infrastructure ka baabi'iyay waxaa la leeyahay caalamku iska fiirsaday sidii soo socday 2014 Crimea ayuu la ruqsaday waa la iska fiirsaday gaboodfalyo ayuu ka geystay Luhansk iyo Donetsk baa la leeyahay waa baa lala galo Jarmalka iyo Faransiiska iyo heshiiskii la dhihi jiray Minsk agreement yaa lala galay haddana hadda wuu soo dhigtayoo wuxuuba isku dayey inuu waddankii Ukraine oo dhan la qabo saas aawadeed ninka haddii Ukraine loo daayo ku hakan maayo ayaa la leeyahay Putin nin waxa weeye dhiigga dhadhamiyey oo aan marnaba ka waabanaynin inuu milatarigiisa dhaqaajiyo xagga iyo galbeedka usoo dhaqaajiyo aan ka waabanayn waxaa laga yaabaa inay Poland tahay tan ku xigta inay Finland tahay inay magaranaysaa Bulgaria tahay Moldavia waaba ku yar tahay baa la yidhi oo doodaha haddaad dhegaysato Moldavia waa wax yaroo ma hakinaysaa la yidhi balse cad waaweyn oo cadtuugu raadinaya arrintaas marka waa laisku raacsiyay ninka meel la iska saaro taas waxa weeye waa tii ruushka runtii arrinta gaboodfalyada waxaa la codsaday in mataqaanaa la sameeyo maxkamad ruushka laftiisu arrintaas jawaab celin buu ka bixiyey wuxuu yidhi isaguna baaritaan buu samaynaya cidda wararka been abuurka maratay fidinaysa ayuu ku samaynayaa baaritaan in lasoo qabto maxkamad la taago sharciyo adag baa laga sameeyey oo ruushka hadda uu sameeyey intuu dagaalkaanu socday in magaranaysaa ciddii warar been abuura karta ilaa 15 sano oo xariga in maaragtay lagu xukumo marka arrimahaasaa isdul saaran Mariupol waxaa leeyahay 9% waa burburtay waxba kama jiraan way magaalada jirto saad sheegtayba magaranaysaa dalal carbeed ayaa hadda bahashaan maaragtay 40 jirsatay ku soo kacay oo iyaguna ay rabaan inay xaggaa u boqolaan marka wararku badan yihiin xaggaaga usoo wareejinaya cabdixaafid وهاك انجينير هدي اينو اغنو waxaanu ognahay ruushku inuu yiri arrintan waa soo baaraynaa wixii dhacay laakiin asagu baaritaanka uma soo baarayo in ciidamadiisu ay dambi geysteen dad propaganda wada ayuu ka hadlayaa dadkan bulshada rayidka way adag tahay in la yiraahdo Ukrainianka dadkoodii laayay oo ruushkay ku beer abuuranayaan dad masaakiin oo bulshada rayid ah ayaa la raadiyay in la helo baaritaan rasmi ah oo ka madax bannaan Putin iyo Zelensky oo la soo ogaado markaa dadkan cidda laysay iyo sida loo laayay muhiimad gaar ay leedahay waxaan ognahay dadka markii rasaas lagu laayo rasaastooda in la geeyo shaybaarka
lana ogaado cidda samaysay iyo cidda rasaastan iskale iyo qoriga uu ka dhacay ciidan walbana hubku wato waa la yaqaanaa laga yaaba saas in lagu ogaado runtii saad u dhigtay si wanaagsan baad u dhigtay cabdixaafid aad iyo aad aad u mahadsan tahay runtii baaritaan ay u baahan tahay horta waa in la xaqiijiyo dadkan inay yihiin la sheegayo dad ku dhintay dagaalkan oo aan lafa hore lasoo faagin ukraine waxaan ognahay inay geed gaaban iyo geed dheer u fuulayso in ruushka la go'doomiyo oo caalamka oo dhan albaabada ka xirtaan waxay ku bixisay ukraine waxay ku bixisay mataqaanaa fursad fara badan bay ku bixisay qaybo fara badan bay ugu fadhisaa dal aanay la hadlin dal aanay dhihin waa inaad xiriirka u jartaan ruushka ma jiro ukraine waxay la raadinaysaa ruushka wixii uu u geystay in asagana laga gooyay raadinaysaa waxay raadinaysaa in xiriirka loo jaro gebigiisaba waxay raadinaysaa in gaaska oo dhan laga jaro in marka lasoo qodayo iyada lafteedu waa wax dhici kara inay dadkaanu jiraanna iyada waa wax dhici kara waxay u baahan tahay in baaritaan mataqaan caalamiya lagu sameeyo la eego lafahan la eego xilliga dadkan la laayay la eego mataqaana tirada ay yihiin arrimahaas waa arrimo baaritaan u baahan oo aan hadda shaabad la isaga dhufan karin cidna runtii dagaalku wax walba waa galaa dagaalku maaha kaliya xabad la isku rido barabagaadhadu dagaalkay qayb ka tahay internetku dagaalku qayb ka yahay magaranaysaa dhaarta iyo beenta iyo mataqaana saxbaboorku intaba dhaar waxay qayb ka yihiin dagaalkay qayb ka yihiin marka runtii arrimahaas waa arrimo u baahan in aad iyo aad loogu dhabagalo cabdixaafid aad iyo aad injineer waxaan rabnaa inaan qodobkan uga gudubna hal arrin oo muhiim leh daawadayaal soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan sharaf iyo karaame nooteeda waqtigaan nala qaadanaysaan injineer waxaa jirta doorashooyin ka dhacay yurub oo taageero lagu siinayo putin saaxiibadiis qaar ka mid ay soo baxeen maxaanu ku ognahay doorashooyinkaas waxaa jira waa waddanka hungary oo doorasho ka dhacda hadda runtii victor orban ninka maaragtay waddankaas prime ministerka ka ah uu ku guulaystay inkastoo ololo badan loo galay oo hadday ahaan lahayd ukraine hadday ahaan lahayd poland hadday ahaan lahayd wadamada maaragtay ku hareereysan oo dhan in laisku dayay in mataqaanaa victor orban meesha laga saaro xataa european unionka oo ay dhowr jeer isku dhaceen runtiina ay mataqaana la aaminsan yahay laleeyahay ninkan xaquul insaanka iyo erayada aad iyo aad mataqaan ninkan waa nin xag jira oo qolada garabka bidigtaa waayo ayaa laleeyahay marka ninkaasu si kastoo looga soo horjeeday iyo si kastoo loo ololeeyaba wuxuu ku guulaystay si khayr xaddhaafa qodob kale rabi lahaa inaan ku noqdo cabdixaafidow oo ah qodobka wadamada carabta ah ee hadda soo baraarugay kuna soo baraarugay dagaalka waxaa jira 5 dal oo carbeed oo wasiiradooda arrimaha dibadda hadda booska u diray 5taas dal waxa weeye waxay leeyihiin waxaanu ka gelaynaa waan baanu ka gelaynaa arrinta ruushka iyo ukraine wadamadaas waa wadamada masar baa ka mida maghrib baa ka mida waxaa ka mida urduna ka mida waxaa ka mida suudaan iyo ciraaq waa 5taas dal waxay u direen wasiiradooda arrimaha dibadda la diray inay carabtu waan gasho dagaalka sidii lagu joojin lahaa iyaguna ay meesha kasoo muuqdaan marka arrintaasu muhiimadeeda iyadoo lafteedu leedahay oo maan la oran karaynin injineere ciraaq ayadaan deganayn suudaan ayadaan deganayn jazaa'ir laftigeeda ayadaan deganayn masar waatan dhexdeeda ayagiyo wadaadadu ay haystaan oo gowda isku hayaan habeen iyo maalin guryahoodii hadduu dab ka baxayo maxaa la yidhahdaa shangaani waxay dhahaan musbaxa gurigaaga u baahan minan kale lagama shido waa sida ay tahay cabdixaafid aad iyo aad u mahadsantahay meel kale diminaya meel kale rabaa inay soo debiyaan runtii anigu waxaan u arkay arrintaas xaqiiqatan arrin adigu kolley magaca jaamacadda carabta iyo wax aykaas laga abaabulay ay u muuqataa in magacoodii meesha laga arko waxbay heshiisiinayaan la yidhaahdo laakiin anigu miisaan ay 5taas dal leeyihiin oo ama ay ku leeyihiin ukraine ama ay ku leeyihiin ruushka oo wax ka bedeli kara dabayshan dagaal ee socota ee islaba rogaysa anigu ima muuqato runtii balse waxa weeye waa un in caalamka maarata la tuso inay iyaga laftooda dunida cadbeed inkastoo badankooduba ay ruushka xulufo la yihiin sida mataqaana ogsoonnahayba oo waddanka algeria oo kale aad iyo aad buu ruushka ugu xiran yahay masar waa sidoo kale aad bay ruushka ugu xiran tahay ciraaq waa injineer haddii halkaas su-aal marana ka keeno markaad eegtid xiriirka ka dhexeeya maraykanka oo militariga masar taageera yahuudda oo xiriir dhow ay leeyihiin iyo
ruushka markaa fiirisid saddexdaas waddan masarkeebaa ay u dhowdahay baa isleedahay aad iyo aad wallahi masaarida runtii hadda maraykanku waa caawiyaa oo aad u caawiyaa oo waxaa jira heshiiskii camp david heshiiska camp david wuxuu ahaa heshiis yuhuudda iyo masar oo ah dalka ugu cududa roor carabta ahaa xilligaas dagaal culusna la galay xilligii madaxweyne saadaad heshiis lala galay oo ahayd in ciidamada masaarida sanad walbaba intaas oo bilyan oo dollar la siiyo heshiiskaas mar la joojiye ma aanan maqal balse masaaridu waayadan dambe iyaga laftooda xagga maraykanka iskuma fiicnayn khaasatan ma garanaysaa sidii donald trump uu meesha uga tegayba donald trump markuu yimidna wuxuuba ahaa nin mataqaanaa lacag aruursi ku jiray oo lacagaha uu maraykanku bixiyo aad buu uga soo horjeedayba lacago wadamo lagu taageero wadankii lacag la siinayana wuxuu dhihi jiray waa in ay wax qabtaan oo lacagta ay ku shaqeeyaan la arko maaragtay faa'iido ay maraykanka u leeyihiin marka nin xujaab uu ahaa isaguna runtii laakiin waxa weeye wadamada carabta xilligan hadda la joogo xagga ruushka u badan yihiin baad isleedahay halkaas inay ka adeegtaanoo maaragtay liiska waxay u baahdaan ay kasoo qaataan waa gartay daawadayaal saddex qodob oo muhiim ah noo haray oon jecelnahay haddii ilaha yidhaahdo inaanu idinla wadaagno waxaa ka mid ah xasuuqii xalinta ka dhacay dalka maraykanka oo mid soo noqnoqday 6 qof ayaa mayday 3 rag iyo 3 dumar ah Sacramento California weeyaan Joe Biden oo sheegay in Putin maxkamadda la keeno maahane arrintaanu aysan xal lahayn iyo weliba qodobka kale muhiimka ee Imran Khan iyo dalka Pakistan xaaladda ka taagan waxaan jeclahay intaa ka hormariyo injineer Lithuania maxaa ka socday iyo Ruushka dhexdooda arrintaas arrin aad iyo aad u culus weeye waana dowladdii ugu horreysay ee Yurub ee safiirkii Ruushka cayrisa Lithuania waxay ku dhiiratay kadib dagaalka ka dhacay Ukraine iyo weliba waxyaabaha xasuuqa ah la soo sheegayo iyo culayska meesha ka jira waxay Ukraine waxay Lithuania ku dhaqaaqday inay safiirka cayriso oo xiriirkii diblomaasiyad cawda u jarto arintaasu arrin muhiimadeeda la weeye arrin ay laga yaabo in wadamo kale oo badan ku darsada ku mataqaanaa ku daydaan inay tahay ayay u eg tahay arrin waxay u eg tahay maaragtay runtii xasaasiyaddii iyo xasraddii reer Yurub tilaabo kor ugu sii qaadaysa waxaa taas barbar socota iyada oo xogayaha guud ee NATO uu ku dhawaaqay inuu gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhaweynayo wadamada Finland iyo Sweden haddii ay go'aansadaan inay NATO ka mid noqdaan oo diyaar loo yahay soddonka dal ee NATOna ay maaragtay si sharaf leh u difaacayaan ugana mid noqon karaan arrimahaasu waxaa muuqata inay dad ku sii shidayaan marxaladii murugsaneed ee hore ee taalay ee Ruushka iyo reer Yurub ka dhaxaysay inay dad ku sii shidayso halisteedana ay leedahay wax kastana laga filan karo inkastoo ilaa hadda xagga Ruushka uusan reaction ka imaanin oo uu ku hawlan yahay Ruushka horta bal inuu ciidamadiisii iyo wixiis isku soo habeeyo waxa uu hadda u saaidiyey gantaalada iyo sawarada cirka uu ka garaacay wuu saaidiyey sababtana waxay tahay inuu ku hoos qariyo ciidamadiisa tartiib ula soo noqdo ku mashquuliyo ma garanaysaa ciidamada kasoo horjeeda iyo mataqaanaa ciidan huwanaha kasoo horjeeda runtii ukrainka lagu sheegayo waa ciidan huwan ciidamadaas inuu mashquuliyo si uu tartiib ciidamadiisa uga soo daadguraysto halkaasna waxaa ka muuqata runtii ruushku jab iyo halaag inuu ka gaaray dagaalkaas markaad eegto qaabka uu hadda uu rabo inuu meesha uga soo baxo iyo siduu marka hore u aaday markaad soo eegto waxaa muuqata ruushka halkaa guulka lama imaanin sida u muuqata laakiin cayaar waa geli dambe weli waxaa laysku haystaa gobolka Donbass iyo Crimea ayaa gacantiisa ku jira ama uu rabaa inuu la wareegaba waa gartay haddii aan halkaas kaga gudubno arrimaha dagaalka aan u gudubno qodobada kale ee muhiimka aan doonin aan la wadaagno saaxiibadeena dunida daafeeda joogaan aad iyo aad ugu mahadcelina 100% injineer maxaa ka dhacay Sacramento California waxaan arnaa school shooting baa dhacay baa la yidhahdaa school carruur dhiganaysa hawb rasaas lagu furay dad baa la laayay maraykanku waxay noqotay meel halis ah markaad eegtid dambiyada ka dhacaya aad u eegtid wadamada kale adduunka maxaa dhacay see wuxuu jira runtii cabdixaafidow Sacramento dad baa lagu laayay habeenkii dhaweeto waxaa ka dhacay runtii wax anigu lama yaabin wax caadi ka ah maraykanka wax caadi ka ah maraykanka sidiisaba waa dad sidii geeljirihii u dhaqma sida kaaboygii u dhaqma
sida xoolo dhaqatadii u fikir xataa fikir ahaan maraykanku waa ka fikir wadooya dadkaan waxa uu ku leeyahay nin walba waxa dastuurka u siinaya xaq u siinaya inuu hub la soo bixi karo wadan karo weliba banaanka u wadan karo oo aysan ahayn inuu qariyo injineer adaa ku watee waa dastuurkooda qodobka labaad weeye right to bear arm bay yidhaahdaan waa qodobka labaad ee dastuurkooda waa dowladda keliya qodobka labaad ee dastuurkooda uu yahay inay shicibku hub qaadan karaan qaadasho keliya maaha waa right to bear arm waa inuu soo wadan karo yes hubka intuu soo gato guriga dhigtan maaha inuu banaanka ula soo bixi karo qorigiisa inta garabka saarto uu dariiqa la lugayn karo waa dastuurika isiinaya buu kuleeyahay ciduna kuma xiri karto ciduna ku qabsan kari mayso marka dalka maraykanka cabdixaafidow waxaan daawadayaasha rabaa inaan la wadaago waa dal dadkiisu ay wada hubaysan yihiin guryaha qaar baa waxaa ku jira xataa taangiyaa yaalla waxa yaalla beergeeyadii baa yaalla hubku ma kala socna hubkii automatic machine ganiska ahaa ee maaragtay loogu talagalay ciidamada militariga loogu talagalay ayay guryaha ku haystaan ayaga midba midka kale isaga ilaalinaya waxaa jirta horta maraykanka aas-aaskiisii civil war adag buu kasoo baxay oo muddo dheer socday oo koonfur iyo waqooyi laysu laayay marka iyadoo mataqaana dagaaladaas iyo murugadooda ay taalo ayaa horta laysu keenay united states laga dhigay saasaana mataqaana lagu heshiyo leeyahay si aan laysu gaadin fiiri problemka ay xaliyeen waxay tahay annaga waxaa dhacda waddankeena oo kale qabaa'ilada istila qabaa'ilada waxaa inay xoogaa hub iyo haystaan laakiin way qarsan jireenoo nin walba bahalkiisa waa u qarsanoon jiray laakiin si aan laysu gaadin ayay maraykanku sharci ka dhigteen si aan beer u gaadin ama koox u gaadin ama koox aysan ugu edab daroonin inay cid walba hubaysan tahay nafteeda daafacan karto marka maraykanka arrimahaas waa soo noqdeen cabdixaafidow in wiil yar ama nin gaangiistara inta hub iska soo qaato uu dad laayo isagoo u aaba yeelin ama uu sakraamo ama uu darooga cabo amaba maankiisa siyo caroodo caro ka keento oo inta dhowr qori oo automatiga meel la galo inuu wuxuu arkaba bafka kaga qaado arrintaas waa arrin maraykanka caadi ka ah cabdixaafidow wax lala yaabana maaha daawadayaal waxaad daawanaysaan brit somali t v iyo weliba injineerka oo arrintan nala faaleynaya waxaa xusid mudan dilalkan joogtada ah ee faraha badan haddaad eegtid dadka chicago lagu dilay dhowrkii maalmood lasoo dhaafay dadka lagu dilay magaalooyin kale waaweyn maraykanka way ka badan yihiin dadka dalkeena lagu dilo haddana lama yidhaahdo maraykanku waa meel fowdaha oo laga cararayo oo bahalgaleena lama yidhaahdo maxaa yeelay dadkiisa ayaa diidan inay sumcadda dalkooda ay dhaawac noqoto laakiin annagu waxaan rabnaa dalkeena inaan sumcaddiisa baabi'ino iyo dadkeennaba waa wax laga fiican yahay waayahay injineer haddaan maraykanka lasii joogno joe biden waxa uu sheegay in la soo istaajiyo maxkamad putin inay tahay lagama maarmaan maxaan ku macnayn karnaa qodobkaas intaan u gudbin aan ku noqdo qodobka hadda aad ka dhawaajisay fawdada maraykanka waxaan marag ka ahayn oo caalamkao dhan laga daawaday iyadoo suuqa bartamihiisa nin askari inta nin gardaduub u xiray dhulka dhigto halkaa qoortaa jilibka ka istaagay ilaa naftu ka baxdo waxaa kaaga daran dadkii meesha jooga way daawanayaan ma la waaye nin yidhahdo war waxaa kale macquul baahay ka kacayo igu dhala ila waa nin gardarane floyd meeshii baa la fiirsanaya cabdixamed marka waddanka maraykanka waa waddan fawdaa oo sharciguba shaqayn meesha askarigu uu daraar cad maalin duhurkiya uu dariiqa ku dilayo qof aan cid isweydiinaysana la argo halkaa ka baxayo marka taas haddaa taa uga gudbo aan joe biden usoo noqdo joe biden cabdixaafidow wuxuu ku celceliyey wararkiisii caadiga ahaa oo ahaa inuu war criminal inuu yahay putin hadalkaas dhowr jeer buu sheegay haddana waa ku soo celiyey oo ma garanaysaa runtii mar labaad buu ku soo celiyey wuxuu ku darayna intaas inaan looga haran maahe waa in maxkamad caalamiya la sameeyaa maxkamad caalamiyana la hor keenaa dembiyada dagaal oo geystana halkaa looga jaraa ama xali qoorta loo geliyaa arrintaasi runtii ma aha hadal madaxweyne leeyihin ruushku hadal nin mas-uula ma aha ruushka keliya maaha dalal badan baa la qaba inaan hadalkaasu hadal mas-uul ama nin mataqaanaa kamid mataqaanaa waddankii caalamka ugu cudud daroonaa hadday tahay xag dhaqaale xag militariba
inuu noocaas u hadlaa waa hadal laga qurxon yaha la leeyahay maalin wata su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi waxaad tiri mataqaana ninkaan kama sii ahaan karo khudbaddu ka akhriyay Poland kama sii ahaan karo madaxweyne dalka ruushka ayaa tiri baa la yidhi marka wuxuu yidhi waa wax lagu qoslo yidhi anigu dalka ruushka Putin nin shaqada ka eri karana maahi nin wax mataqaana samayn karana maahi marka nin hadalladiisu saa isu khilaafsan yihiin anigu waxaan isleeyahay waa da'daan isleeyahay Joe Biden waa nin siyaasi ruug caddaa ah ilaa 40 sano ku dhowaad ayuu ku jiray mataqaanaa sanadka ka mid ahaa nin mataqaanaa siyaasadda intaa kusoo jira weeye laakiin waxaan isleeyahay horta waxaa Soomaalida waxay tahay wad ku daayo mataqaanaa da'an ku daynaynin bahasha inay ka daba timid ayaa muuqata mataqaanaa mar saasaana keentay in mar walba la saxo oo la yidhaahdo maaragtay warbahasha tartiib iyo saas looma wadine hadalka maaragtay afkiisa lagala baxay in la yidhaahdo injineer adoo soo koobaya qodobkan haddaan hal mar dul istaagno inuu Joe Biden yidhaahdo Putin maxkamadda la soo istaajiyo ama Putin uu yidhaahdo inkastoosan oranin Biden maxkamadda la soo istaajiyo ayagu ma ahan dadkii askarta ahaa ee dadka inay xukunka inta soo qabtaan maxkamad keenaya ma ahan ayagu arrimahan in loo daayo maxkamadaha caalamiga ah ee markaas arrimahan khaaska ay u yihiin oo baaritaankooda ay qabtaan ma u eg tahay inay saa ku habboon tahay mise waa laysla lisay hash absolutely cabdixaafid waxay ahayd haddii caqligu shaqeynaya waxay ahayd arrimahan in baaritaan la sameeyo in wixii meesha ka dhacay la raadiyo in ma garanaysaa commission loo sameeyo commission UN ah international organization ah in loo sameeyo wixii ka soo baxa markaa lagu xisaabtamo la qiimeeyo ayay ahayd laakiin arrintaani hadda waa baalxoofta dagaalka ka mida dagaalka Ukraine bay ka mid tahay erayada noocaana oo kasoo yeeraya madaxweyne Biden iyo kuwa Zelensky kasoo yeeraya oo weliba xadka ka baxsan waa qaab dagaalkay ka mid tahay waxay ka mid tahay in ciidamada ruushka niyadda looga jabsho in dadka ruushka lagu kiciyo idaacadaa la furay oo ruushka qof kasta uu dhegeysan karaa meel kasta la furay oo waxaa la furay mataqaana waxay ku kaliftay xataa ruushku inay social media xiraan mataqaana ay dalka ka mamnuucaan social media sababtoo ah propaganda aan caadi ahayn ayaa cirka iyo dhulka laga keenay laguna jaawareeyay dadkii ruushka ahaa dadka qaarna mararka qaar ba aanay garanaynin waxaa la sheegay waxa ka runa iyo waxa ka beera waa gartay injineer qodobkeenu u dambeeya ku jira daawadayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba meel kastoo dunida ka joogtaan injineer haddii aan u gudubno qodobkeena culayska gaarkaa leh Imran Khan iyo Pakistan xasilooni darro siyaasadeed baa ka taagan waxaan ogeynaa isagoo laga keenay mooshin dabadeedna baarlamaankii halkaa lagu kala diray maanta ayaa loo balansanaa maxkamadda sare ee Pakistan inay arrintaas go'aamiso oo go'aan ka qaadato maxaa ka soo baxay balna xasuusi marka hore say wax u dhaceen saacadihii lasoo dhaafay ku soco aad iyo aad waa mahadsantaha cabdixaafid arrinta Pakistan shalayna xoogaa baan ka hadalnay arrintiina waa sii laba kaclayso isbedel badan baa ka yimid Imran Khan saan la soconnaba wuxuu kala eriyey baarlamaankiibuu kala eriyey waxaana arrintu ka bilaabatay sidiisaba xisbigii wadaagga ahaa ee uu ku xukumay dalka ayaa ka kala yaacay deetana wuxuu noqday mataqaana minority uu noqday mana ku joogi kara meesha waa inaad haysataa saad waddanka xukunto xildhibaano kugu filan waa inaad haysataa baarlamaanka ku leedahay taas waxay keentay in laga keenay mooshin la rabo in mataqaana Imran Khan codka kalsoonida loo qaado isagu taasuu ka dabaaqtamay wuxuu sameeyey wuxuu yiri baarlamaanka gebigiisa waa kale inkastoo xataa codkaba aan la qaadinoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayaa diiday arrintaas oo yiri mataqaana sharci maaha arrintii waxay noqotay arrin sharci oo laysku qabsaday maxkamadda dastuurka la isla aaday dabeetana maxkamadda dastuurka maanta way fariisteen dib bay u dhigeen waxaa la yidhi mataqaana talaadada ayaan maarata mar labaad isku soo noqonaynaa in ay ka jawaabto maxkamadda laga rabaa kow in mooshinka laga keenay Imran Khan oo mooshin sharciya yahay labo kala dirista oo baarlamaanka kala diray inay sharci tahay oo uu leeyahay mataqaana doorashada 9 cisho kadib la aaday sharci tahay waxaasoo dhan waxaa laga sugayaa maxkamadda dastuurka loo fadhiyaa ayada ayaa go'aanka kaba dambaysta leh ciidamada qalabka sida ee Pakistan oo iyaguna runtii sheeda ka ilaashanayo generaallo waxay leeyihiin Pakistan mararka qaar iyaga laftooda hami siyaasad hayo oo raba dalka inay qabsadaan sidii generaalkii kala hore inqilaabay Nawaz Sharaf inqilaabay haddana inqilaabkii waa laga baqayaa
laakiin waxay ilaa hadda leeyihiin wadu sheedaan ka fiirsanaynaa laakiin dalka haddaan islaana qalqal buu siyaasiya ku jira waxaa laga yaabaa inay ciidamadu soo farageliyaan cabdixaafid isha ku haynayna maalmaha soo socda arrintaas aad iyo aad qodob muhiimadiisana weeye injineer waa ku mahad celinaya boqolkiiba boqol daawadayaal intaas ayaa caawa nooga eegtahay ramadaan kariim ayaad leedahay meel kastoo dunida ka joogtaan injineerka allaha karaamaya isaga iyo ehelkiisa iyo qalaabadiisaba idinka daawanayna waxaan idin leenahay ramadaan kariim meel kastoo dunida ka joogtaan soomaaliya ujeeda ceeb naftiina ka dhowracay nabadgelyo